أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم walaalyaal waxaan rabnaa meeshan inaan isku yaro baraarujino in qofka bini aadamka ay tahay in uu caafimaadkiisa isagu isdar yeelo caafimaadkiisa gudaha iyo banaanka labadaba sida uu uga walwalayo dadka kale oo mas'uulka ka yahay ama uu walaalaha leeyahay ama waalidka u yahay ama isaga waalidka u ah ama isaga ilmaha u ah walwalka uu ka walwalaya iyaga caafimaadkooda ayaa waxaan yara rabnaa inaan muujino inay horta hore muhiim tahay sababtiisa inuu meel saaro markaas uu tu kale uu ku dari karaa oo xagga caafimaadkiisa waxaan jeclaan lahaa inaan wax yar inkaga taabto product natural ah oo haddaad isticmaasho aan wax dhibaataa kuu geynaynin in uu kuu faa'iideeyo mooyaane hadduusan ku anfacaynina aan ku dhibaynin in aan wax yar ka taabto inuu hadalla koo koobanna aan ku keeno sababtoo waa cilmi fara badan mar kaliya lama soo koobi karo كمبريغان waxaa la yiraahdaa DXN macnihiisuna waxa weeye waad ugu kalsoonaa kartaa macnaha productigan aan ka hadlayo waad ku kalsoonaa kartaa waa product kambanigu isagoo gacantiisa ku suubiyo uu mas'uul ka yahay maanta maaragtay adiga gacantaada inuu kusoo simayo maaragtay cid kale aynan u dhaxaynaynin ilaahay subxaanahu wa tacaala geedo fara badan oo faa'iido leh ayuu dunida guudkeeda ku abuuray علمه من علم وجهله من جهل ننكي إلهي بريبا قرانيا ننكان أقوننا هذا ما بقى أقونايو والدواب جاهل بوكي هذا مركا وحن سلاننا هاي درتا سير بالأوغادي إن آدي كجركي سأنفعيسو إنا وحيا كتاتابنو درفر بدون ويه لكن بالهذا إنت أن هبنو إني تاي طبيعي أورجانيك أي تاي قفكو هدو عنو أما كنسوم قريانا واحد بتاع أوجي سنينين أو إلهم تاي موسكي يا قريه يا عنبيه يا إلهم تاي بريسكي يا بطاطي كربونيني سدوديو كلا إلهم تاي أو قفكو مالين والبوسكا عنو كركور كيسنا عارفان وكيلكم إن وح كمبني كان أو كوب بلاوي مركو ريدي درتي أو كوب دمسمية بارتان كوكسو بيه وح أقول ريجيت كان ليرادو مشروم كان مشروم ومرع عامة meelaha qaarkoodna jabaanka iyo chinaha iyo waxay u yaqaanaan riishi ayay u yaqaanaan maadaama ay saas u yaqaanaan magacaas isaga ah magaciisa scientific ahna waxa weeye waa ganoderma kulay meelaha qaarkoodna funga looga yaqaana af Soomaali ahaan anagu waxaan dhahnaa barshan waraabe ama maaragtay hadii alla ku rooyaa meelaha qaarkoodna buuqshaaba looga yaqaanaa meelaha qaarkoodna magacyo aanan hadda afka ku dhufa karin baa looga yaqaanaa laakiin waxoo anaga ma isticmaalno Soomaali ahaan aad uma yaqaanaa Soomaalidu laakiinse rag howdka ka yimid maraan la kulanay oo dhirta xaggeeda ku dheereeya waxay nagu dhaheen geedkan kundawaale ayaa loo yaqaanaa waxaan siinaa awrta markaan rabno inaan ku geed bixino oo aan safar adag galno baa la sii jiray waxa kundawaale loogu bixiyana markii la isticmaalo xoolaha la siiyo wax kastay qabeen xoolaha waa ka istaagayaan waa soconayaan 38 oo nooca eeba abuuray subxaanahu wa ta'ala iyo kuwa aan aqoon ka sii badan 38 qaar baasuna qaar badaha ku dhex yaala qaar biyaha ku dhex yaala gabigood nafaqo ma wada laha waxaan nafaqo lahayn dhahan iyagu 206 ayaa waxa ku jira canaasir nafaqo u leh ibn aadamku ka faa'iideysan karo waxa uu si fiican 106 waxa uu si fiican hadii alla ku rooyahay 6 loo yaqaan 6 gadgaduudan oo inta hadda aynu ku hayno kamid yahay 6daas gadgaduudan subxaanahu wa ta'ala waxay ku baxaan awood mucjiso ilaahay weeye ilaahana ku mahadsan garansiiyay 4 bilood bay ku baxaan 4 bilood ay ku baxayaan 6dan gadgaduudan waxa weeye bil walba bisha kale faa'iidada ku jirta kuma jirto bisha u horeysa waxa ku badan canaasirta maaragtay unugyada jirka kuriimadooda ka qayb qaata nafaqadooda ka qayb qaata bisha kale waxa ku badan canaasirta maaragtay la dagaasha waxyaabaha jirka ku ah unugyada jirka dhibka ku ah sida maaragtay waxyaabaha loo yaqaano khalaaya al-hurra bil arabi ama ingiriiska lagu dhaho free radicals ama lagu dhahaba Soomaaliga unugyada gadoodayo ogolayn inay unugyadii kala la shaqeeyaan oo burooyinka iyo jirada aad oogada u cunto iyo ay kamid yihiin kuwaas oo dhan maaragtay marka muxuu soo banayaa baalkan waa qado daawo maaha sokor daawo uma aha dhiikar daawo uma aha cholesterol daawo uma aha wuxuu daawo u yahay male laakiin wuxuu la tacaamulaa oo la sheekaystaa oo uu xoojiyaa unugyada jirka unugyadii jirku markii ay xoogoobaan nafaqadii ay rabeen ay helaan ayaa waxa dhacaysa in uu jirku iska dhiciyo wax alla wixii cudur isaga dhib ku hayay
hadba waxay ku xiran tahay qofkan ibni aadanka ah jirkiisa soo markii hore u daryeeli jiray iyo si uga warqabi jiray hadduu biyo badan cabi jiray oo fiicnaa kaliyihiisa waa fiican yihiin qofku waa qof fiican hadduu qudaar badan cuni jiro waa qof fiican laakiin hadduu qof maarata habeen walba dhafar ku jiri jiray biyo aan cabaynin oon qudaar cunaynin oon qof korkiisa dhaawacan yaha weeyo korkiisi waa carbohydrate acidic unbaa ku badan macnaha qudaar waa ku yartahay korkiisa qofki balansiga jirkiisa waa dhumay korkaagu boqolkiiba 80 waa inuu qudaar yahay boqolkiiba 20 waa inuu acidic yahay hadduu boqolkiiba 80 kaas qudaarta ka dhaco waxa weeye bakteeriyada dhalashadeeda badanaysa dhibkeedo baalka marka muxuu faa'iido leeyahay isagu waa budo hadda midkan gacanta aan ku hayno isagoo kaniiniyana wuu jiraa oo qofku 2 iyo 2 u qaadanayo kulleyba da meeshan hadda aan joogno baad ka helaysaan wixii aad uga baahantiin insha allahu tacaala orderkeeda iyo ka warqabkeeda qaado qof ku qaadanaya kan waa budo wax alla wixii markaa horyaallo ku darsanaya biyo yaro iska diiran oo waxba aan ahayn biyaha caadiga ayuu ku shubanaya wuu qasanaya waa cabaya markuu cabo qaadadooda waa qaadada yartaa shaaha lagu laaqo taas wey maaha qaadada weyna cuntada maaha midda shaaha lagu laaqo wax yar darsanaya taasoo marka subax walba aroortii hal qaadoo ka qaadanaya marka oo halkaa qaato maxaa dhacaya marka 3 bari ilaa 4 bari bahalkan wuxuu reaction la gelayaa jirkii markuu jirkii reaction la galo oo jirkii u tago jirkaaga wuxuu u kala baxayaa 3 qaybood waa unugyo dhintay waa unugyo nool waa unugyo maanta maaragtay ilaahay ku roon yahay tacbaan unugyadii noolaya qaar tacbaan iyo qaarna xoog leeyihiin unugyadii tacbaanka ahay uu nafaqaynaya unugyadii haddii alla kuro dhintana oogadaadu ka dhaqaya oo kaadida iyo saxarada iyo dhididku raacinaya taas aawid qofku wuxuu dareemayaa relief haddii dhib hayay inuu soo roonaanayo cudurrada ad adaga dardaran qofku high dosiyaba u qaadanaya waa cunta laakiin qofku haddii wax daawa uu qaadanayo dhakhtarkiisa usoo qoray ma uu joojinayo yuuna u malaynaya inay daawo tahay laakiin waxaa weeye waa cunto gaarsiinaysa daawadaas oo isticmaalayo dhakhtarkiisii markuu ku noqdo inuu dhakhtarku dhaho iska yaray daawadii aad cuni jirtay ila dhakhtarku hadda inaad waxaan qaadanaysa ma ogaasa laakiin wuxuu dareemayaa wixii dhibku hayay inay sii yaraanayaan marka daawadii buu kaa yaraynaya waa positive markaa qaadato 2 beri 3 beri qofku waxaa laga yaabaa inuu xaggan gumaarka iyo xagga hoose iyo infectionada haddii qofku ku badan yihiin had rag iyo dumar waxay doonaa ha ahaadaane in markaa uu dareemayo in habeenka koowaad jiro go camal sidii qof kubad soo dheelay ama shaqo adagoo xagga murqaha qabto oo kale inuu jiro go dareemayo yuu ka cararin waa okay biyo badan waa inuu cabaa habeenkii suuniga waxaa laga yaabaa 2 jeer 3 jeer 4 jeer inuu usoo kaco waa wax fiican yuusan ka cararin taasna maanta maaragtay oo u roonaado sidiisana ama alaabtan isticmaal ama ha isticmaalan waa inaad tahay qof usuroon oo biyaha caba oo maanta maaragtay qudaarta cuna oo hore u seexda oo maanta maaragtay xanaaqdiisu iska ilaaliyo inuu xanaaqdiisu badan yahay ama socodkiisu inuu badan yahay ama waa inuu exercise caadiga badan yahay taasna waa inaad wadkaaga iyo naftaada iyo dadkaaga ina aad bartaa ood ku tarsiisaa si dhib uusan ku jirina aad ugala warqabtaa intaas markuu suubiyo wuxuu suubinayaa kaadida faraha badan arkaysa wasaqdii buu soo saaraya markaa kadib wuxuu baalansi garaynayaa unugyadii jirka in ay awaamirta isi siinayeen say tahay u kala qaataan dheecaanadii ay daynayeen say tahay inay usoo daayaan heerkaas markuu gaarsiiyey jirka kadib haddana wuxuu gaarsiinayaa inuu qofka difaaci jirka uu xoojiyo daawo maaha isagu laakiin sidii bariiska aad u cunaysaa difaacagana waa kuu xoojinaya